deegaanada kale dalka qoomiyad badan baa ka jira deegaan lagu wada nool yahay sida deegaankeena ma jiro taana waxaa sababaysa in deegaankeena uu jiro dadka Soomaalida deegaankeena ku nool ayna ilaalinayeen lahaanshaha deegaankeena sababtoo ah deegaanada kale dalka waxaan ogsoonahay imika deegaankeena ugu dhaweey jaarka lanahay oo kale Oromiyo kala taan ka soo qaadno iska daad dukaanaad ka qabsato ama ganacsi aad ka samaysatay intii aad wadada maraysaa laga yaabaa inaad adoo nabadgelyo aad tagaydo marka taay kulli waxay la dhigantaa oo leeyahay waa damir xumo haysata dhammaan Soomaalida oo meel kasta ay Soomaalidu ku nooshahay deegaankeena ma laakiin meel kasta ay Soomaalidu ku nooshahay bulshooyin badan oo kala duwan oo ama kuwa qoomiyadaha kale Itoobiya noqdaan ama meel kale noqdaan baa kuwada nool marka taasuna kulli waxay ka dhigantaa oo Soomaalida dicifnimadeeda marka arrinkaana bulshada kale waxay soo jeedin lahaa imika dalkeenan waa deegaanka kaliya ee nabadda ah maanta nabad haysta marka kulli waxaan dhihi lahaa inta imika isbedel ku dhacay ama 3 sano ee ugu dambeysay isbedel ku dhacayna waa lagu soo badanaya anu waxaan aaminsanahay ka shakhsiyan dhowr sano kadib inay noqon doonto caasimadda saddexaad ee dalka haddii aan mataqaanaa arrimahan jira aan dib looga qaban in badan inay difference ka jiro deegaamada Itoobiya deegaanka Soomaalida inta badan waa lagu soo hayaamay ama waa lagu soo qaxay mararka qaybta su'aalaha isweydiinaya waxay jirtaa meelaha magaalada resource ka soo gal tusaale haddaan tago oo kale airportka magaalada Jigjiga oo maxaan ku dhahay Garadwilwaal kama arkaysi wax ka shaqeynaya Soomaaliya dadka ka shaqeynaya waa dad Ajnabi ah waa dad Itoobiyaan kale ah haddaan tagno magaalada guryaha laga dhiska magaalada ka socda dad ka shaqeynaya inta badan waa dad aan Soomaali ahayn haddaan aragtay magaalada boqolkii xaafadood oo meel yaala boqol dukaan baa ku yaal boqolka dukaan ku yaalana wiilal Ajnabi ah ka shaqeynaya marka qaybta isma dhihi karo dhalinyarada ayaa saas oo dhan liid u ah dhalinyarada ilbixinasho oo ay ku jiraan laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarada force ama xogaa culays xagga dawladda saaran baa jirta oo dawladda haddaan magaalada wax kasto income yar naga soo galayo qoladan aad joogta marka sabab aan isleeyahay madaxweynaha waxaan weydiin lahaa oo kale ama dhihi lahaa fariin ugu dir lahaa mudane madaxweyne deegaan kasta wuxuu ku nooleeyay dadkiisa dadkuna wuxuu ku nooleeyay deegaanka dhaqaalaha ka soo baxa hadiiba dhaqaale dhalinyarada laga maartay ma laptop inaan qaaton xafiiska tago shaqo ma ii noqonayso impossible lama noqonayso laakiin dakhligu meelo badan buu naga soo galayaa anagu ma lihin deked waxaan leenahay airport waxaan leenahay beero waxaan leenahay dhisme waxyaalahaas baanu maaragtay aanu shaqada naga soo gashay ama dhaqaale naga soo gala marka meelihii hadiiba gabi ahaanba dhalinyaradii laga qabsaday waa xagga dhalinyaradu miyay hayaantaa ama gobolada kale waa hayaantaa annagana la kama ogolo gobolka Oromiya haddaan tagno kama shaqayn karno meelaha kale oo kilalada kama shaqayn karno laakiin annaga nolol soo guuraa ma dhihi karaaba marka bal dhalinyaraduna waxaan dhihi lahaa war bal arrintan u dabagalo imtixaamaadka waa la wada galaa ma meesha imtixaamaad gaar ah lagu galaa oo dadka mashaqada si gaar ah loo karto gaar ah lagu doortaa bal arrimahaas in loo dabagalo oo waxa dhaqaalaha wadanka wixii loo qaatay oo ciidan ay maartay aynu daba fadhiisanayno deegaanka hadaynu marti ku nahayna Soomaalidana kala ku biirno hadii kala dad muuqda Soomaali oo muuqda aan noqono farqiga u dhaxeeya maartay in qoomiyadaha kale shucuubta Itoobiya ay deegaankeena si nabdan ku joogaan oo ka shaqeystaan anagana noo ogoleen in maartay aan tagno dalalka dariska anaga waxa keenaya waxa weeyaan qof Soomaali maarka deegaanka xamaarada ka shaqeysan kara ama bajaaj ku dhax kaxaysan kara ama shaqo kale yar ma jiro iska daa qof kale waxaan waxaan lahayn shacabka Soomaalida maartay waa dad la gumaysto way gabadha Itoobiyaanka inta ka soo qaaday Addis Ababa bay barti doonto geyn kartaa gabadha Soomaaliyeedna tirdhow wax ma geyn karto ama harar ama wajaalo ka torbaan waxaana ka torbaan ka dhigay waxooda ka dhigay ka torbaan ka dhigi waay wax barasho waarta dhalinyarada jaamacadaha ka dhigto dulbiga ku dhigtaan kuwa Jigjiga joogana xorriyad ba ku dhigtaan waxaad waa maartay dadka in maartay maskax laga xoreeyo ayaa ka horeysa in maartay wax loo qabto dawladda Itoobiya inay gumaysato shacabka Soomaaliyeed dunida dhan baa og in shacabka Soomaaliyeed halgameena dunida dhan baa og marka dadka maanta dad waxaan arkay TPLF amaanahay oo kale TPLF xasuuq goysatay waa loo geeyay deegaankeena jilowaaday wax ka dhacay shalay Jigjiga wax ka dhacay Muqdisho dadka laga soo dhiibay Hargeysa laga soo qofaalinay Jabuuti laga soo dhiibay marka waxaan leeyahay dhalinyarada deegaankeena ka shaqeysanaysa xawashada waxay ku arkeen jilacsanaanteena iyo waxa u tahay qurbay u tahay ayagu Ameerika u tahay Canada annaga maartay dhalinyaradeen meelaha darbiyada joogta Hirsi Maxamed